waxay ahayd gabar yar oo 6 jir ah. Aabaheed waa uu geeriyooday, mana lahayn walaalo kale iyo garab kale. Hooyadeed ayaa wax walba u ahayd, laakiin hooyadeed ma aysan awoodin dhaqaalaha waxbarashadeeda iyo nolosha si wanaagsan duruufo jira awgeed. Maalin maalmaha ka mid ah waxa uu soo dhacday warqad oo ay ku qoran tahay gabadhan waxbarashadeeda ha sii wadato, sidoo kale lacag ay ku jirto, lacag weliba noloshooda ku filan. Bil kasta lacagtii ayaa u soo dhici jirtay. Waxay isweydiiyeen halka lacagta ay ugu imaanayso, laakiin ma aysan ogaan. Gabadhii waxbarashadeedii iskuulka ayay bilowday, waa ayna dhamaysay. Jaamacad ayay bilowday oo medicine ay baratay, waa ayna dhamaysay. Bil kasta sida in laga warqabo markay jaamacadda bilowday lacagtii waa la kordhiyay. Markay waxbarashadeeda dhamaysay waxay noqotay dhakhtarad. Si lama filaan ah waxa u go'ay lacagtii u soo dhici jirtay iyo fariintii la socotay. Waxay isweydiisay waa kuma cidda lacagtana siinaysa. Waxay gashay baaritaan. Waxay ogaatay nin oday ah oo kaligiis meel ku nool, oo muuqaalka sare u ag inuu faqiir yahay, inuu yahay qofka lacagta u soo diri jiray. Waxay u tagtay odaygii, waxayna ku tiri waa maxay sababta aad ii caawinaysa anigoon ku aqoonin. Wuxuu ku yiri, sax ima taqaanid, laakiin aniga ayaa aqaana aabaha. Aabaha ayaa naftayda badbaadiyay. Waxaan go'aansaday inaan u abaalgudo, laakiin waa uu geeriyooday. Ma helin fursad aan uga abaalgudo. Sidaas darteed waxaan go'aansaday in aan abaalkii aabaha adiga kuu sameeyo. Gabadhii aad ayay u qiirootay, waa ay ilmaysay, waxayna habsiisay odaygii, waxayna u aqoonsatay maalintii wixii ka dambeeyay sida inuu yahay aabaheed labaad. Qisadan waxayna tusaysaa wanaagga aad adigu samaysid waxay saameyn doontaa carruurtaada. Salaamu calaykum.